wiilkan oo lagu magacaabo Muscab Xaaji Cabdi ayaa waxa uu dib u celiyay hanti aad u fara badan oo uu sheegay inay ku soo gashay jid xaraan ah. wiilkan dhalinyarada ah ayaa waxa uu kamid ahaa mas'uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida, gaar ahaan waxa uu ka shaqeynayay magaalada Qabri Dahar. waxa uu kamid ahaa xilligii dowladii Cabdi Maxamuud Cumar ayuu kamid ahaa oo dowladii ka horeysay ayuu kamid ahaa. waxa uuna maareeyo ka ahaa halkaasi kulliyadda caafimaadka ayuu maareeyo ka ahaa. lacagtuna halkaas ayay ku gashay. wiilkani waxa uu dib u celiyay lacag 30 milyan oo lacagta birta dalka Itoobiya ah. lacagtaas oo dollar ahaan markii la qiimeeyo lagu qiyaasi karo lacag adigu 200 kun oo dollar ka yar 170 kun oo dollar lacag ku dhadhow ayuu dib u celiyay. lacagtaas waxa isugu jirtay guryo, dhul banaan iyo sidoo kale ganacsiyo shaqeynaya ay isugu jirtay lacagtaasina waa uu wareejiyay. wiilkani lacagta marka xaqi ku wareejiyay waa su'aasha la isweydiinayo inta badan. waxa uu ku wareejiyay wadaado guddi isku magacaabay. wadaadadaas oo sheegay inay gacanta ku hayaan goobo waxbarasho sida madrasooyin, sidoo kale inay gacanta ku hayaan masaajid iyo sidoo kale goobo caafimaadba. waxayna sheegeen in halkaas ku darayaan. macnaha waxay leeyihiin lacagtan wax lagu bixinayaa danguud, madrasad danguud ah iyo sidoo kale masaajid lagu cibaadeysto iyo sidoo kale waxaan gelinaynaa goobo caafimaad. hanti kala duwan oo ay soo gashay igana soo gashay system dawladeed oo ku jiray meelo kala duwan iga soo gashay oo xafiisyo kala duwan iga soo gaadhay. hantidaas oo bilowgeedii haddii aan dib ugu laabto ahayd 1,650,000 lacag gaadhaysa. maanta oo 2026 January la marayana 30 milyan ku dhawaad lacagtaas hantidaas way gaadhi doonto. hantidaas waa 3 qaybood. 3 qaybood waxa weeyaan waa guri 5 qol ka kooban, 2 qol oo surface, jikadii iyo suuligii leh, 400 kaare mitir oo dhul aan haysta. waxaa jira oo kale boos bakhaar dhisme uu ku yaalo oo anigu lahaa ku magacaabnaa. booskaasna waxa weeyaan waxaan ugu talagalay waqaf masaajido in loo dhiso kadibna ay noqdaan business kira oo u socdo waxa weeyaan noloshooda inta ay adduunku u jiro u kareysnaada. haddaba su'aalo badan ayaa arrintaasi la iska weydiinaya. yacni arrintaani inta badan kuma koobna wiilkan iyo wadaadadan. annagu wiilkan iyo wadaadadan waxba kuma ogin gooniya. wiilkaanna waxaan u aragnaa nin wanaagsan oo wax maalin ku fakaday iska soo celiyay. wadaadadana kolley siday sheegeen danguuday ku qabanayaan. laakiin su'aal baa isweydiin mudan. su'aashaas oo ah waxa la ogyahay meeshii laga qaaday lana yaqaano sabab ma ahayn in lagu celsho isla meeshii, mise wadaad inta u yeerto waa ku wareeji karaa ama guddi wadaado ayagu wadaado isugu kay sheegay inay guddi yihiin ma ku wareeji karaa. sidoo kale ay sheegeen inay danguud uga shaqeynayaan. yacni anugu kolley waa laga cilmi badan yahay, laakiin sida culimada ka maqli jiray shayga haddii la yaqaano meeshii laga qaaday waa in isla meeshii loogu talagalay lagu bixiyo shayga. laakiin markii la aqoon waayo shaygan meel uu ka yimid iyo meeshii uu lahaa oo munaasab ku ah, markii la aqoon waayo ayaa danguud looga shaqeeyaa. haddaba wiilkani kulliyadii uu ka shaqey jiray way jirtaa oo ma baabi'in. goobihii waxbarashadana weli waa ay jiraan oo loogu talagalay dhaqaalahan. suuragal ma tahay in wadaado guddi ah lagu wareejiyo? waxa waayadan dambe soo batay wadaado inta iyagu is aruursadaan ganacsatada u tagaan ku tashkiilinaya haddii maalin wax kugu fakadeen innaga ayaa kaa qaadayna kaana cafinayna danguudna ku bixinayna. wadaado isku aruursaday ayaa waayadan soo batay. weliba wadaadada ma wada ahane wadaadadan dambe sabankan la joogan hataa wadaad la aamino waa la waayay oo wax badan baa qasan. su'aasha markaan kuu soo kabo waxay tahay hantidan soo lagama qaadin dowlad, system dowlad welina dowladdu soo ma jirto. soo wasaaradii waxbarashada lagama qaadin, gaar ahaan goobo waxbarasho khaas ah soo lacagtan lagama qaadin. intiiba waa ay jiraan ilaa hadda. maxaa diiday in dib loogu celiyo oo keenay in wadaada lagu wareejiyo? weliba wadaadadaasi goobahooda waxbarashada iyo ay ku maalgeliyaan iyo goobahooda caafimaadka yaa arrintaasi soo tifaftiray oo soo caddeeyay in ay wadadii saxda ahayd tahay oo lacagtaas lagu celin lahaa. wadaadadu weliba sabankan la joogo iyaguna dhexdooday ka tafan tahay. waxaa laga yaabaa masaajidda in la isku haysto la isku diriro qabiil ama ururdiimeed ay isku haystaan, masaajidda isu diidan yihiin. waxaa kaloo jira madaaristii in ay tahay madaaristu meel mucaskaraad iska soo horjeeda laga soo saaray inay waayadan dambe noqotay.
yaa hufay arrintaas wadaadadan anagu hadda waxba kuma ogin laakiin wadaadadu armay wadaadadii yihiin su'aasheeda aniga wiilkana ma qusayso wadaadadana ma qusayso laakiin waxa ay tahay xoolo meeshii laga qaaday la yaqaano maxaa keenay in meel kale lagu maalgeliyo su'aasheedu waa taa tusaale ahaan waynu naqaanaa maamulo iskuul maamulaad ka tahay meeshan waxaa laga yaabaa lacagtan inaad ka keentay ardaydaas masaakiinta ah oo wax baranaysa oo ilmadooda ah wixii cuni lahaayeen inaad wax ka kala reebtay waxaa laga yaabaa fasalladoodii loogu talagalay lacag loogu talagalay in lagu waasiciyo fasallada inaad fasalladii ku ciriirisay laga yaabaa waxaa laga yaabaa goobihii waxbarashada iyo goobihii akhriska iyo makaatibtii iyo waxaasoo dhan inaad ku ciriiriso ku dhibaataysay lacagtana halkaas aad ka qaada laga yaabaa waxaa laga yaabaa servicekii iyo dadkan wixii wax loogu qaba lahayo dhan inaad ciriiri uga dhigtay lacagtana halkaas aad ka samaysay waanu fahmi karnaa dhibaatada ay leedahay waxaa laga yaabaa in qofkaasi sabab u noqdo arday badan oo guulaysan lahayd inay niyad jabaan noloshana ka dhacaana laga yaabaa tusaalehaan qofkaasi mar dambe soo baraarugo damcana wixii inuu iska celiyo haddana inuu wadaada ku wareejiyo wadaadadaasna haddee iyagu iskooda ugu maalgelinayaan madaaris iyo masaajid arrintaasi waa su'aal aad u baahan in baaritaan lagu sameeyo weliba waayadan way soo badatay barnaamijyadan ah wadaad ii taskeeya arrintaasaan raadsanaya iyo wadaad asaguba raadsanaya oo dhahaya aan ku taskeeyo arrintaasi qumus waxa la yidhaha kuwa qaadaa la sheegay inta 5% ka qaataan inta kala dhaha waxa waaye siida hore u soco marka aanu saas leeyahay wiilkan aad baan ugu mahadcelinayaa wada fiican uu furay nin dhalinyaro ah oo weli adduunkii u bidbidayo inuu wax iska soo celiyo oo weliba lacagta inta la eg hantida inta la eg soo celiyo waa wax aad iyo aad u wanaagsan ku dayashana mudan waxayna tusaale u tahay kuwa horay dadweynaha waxooda u qaatay iyo sidoo kale kuwa hadda damacsan inay wax xadaan ama wax qaataan ay tusaale cad u tahay wadaadadana ma haysto kulay hal baan inaga filan anaga wadaadadu waxay anagu cadaalad baana ilaahay baan idinku deynaa ku filan ee wadaadada ma haysano kuwaan ma ah laakiin arrintan way soo badatay in dadka dib wax u celinaya wadad sax ay wax ku celiyaan intaas baan ka duuleynaa wiilkan marka si gaar ah ayuu ugu mahadsan yahay wuxuuna tusaale u yahay dadka dawladaha u shaqeeya ama sistamyada u shaqeeya ee wax dhacay ayuu wuxuu u yahay tusaale inay ku daydaana loo baahan yahay ee iska celiyaan waxaas sidoo kale waxa jira kuwa wax badan dhacay oo waliba aan maanta gacan ku haynin ugu yaraan waxay awoodaan inay dadkii iyo meeshii wax ka qaadeen inta u laabtaan waxna ma hayo waxaasna waa igu tageen inuu ugu yaraan yiraahdo ama ma soo raadiya oo ma iska bixiya mise waxa la helayaa wada kale marka kuwa waxa jira waliba wax dhacay oo wixii isku daweeyay xataa oo aan xitaa toobad diyaar u ahayn inay toobad keenaan ka warwareegaya wixiina isku daweeyaba oo ilaahay imtixaan ku saliday iyo cudurro ku saliday gaar ahaan haba ugu sii badnaadeen siyaasiyiintu tusaale ahaan meesha dhaca ugu badan oo ka yimaada waa systemka dawliga ah dadka ka hoos shaqeeya xoolo waxa la iska helayaa la iska dafalaqsado ayaa la helayaa xoolahan dad baa lagu dhibay ama meel baa lagu dhibay inaad gaarsiiso meel dhex ayaad wax badan uga bixinaysaa waa musuqa ugu badan Soomaalidu meesha ay ku jirto waa siyaasadda siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxaad maqlaysaa madaxweynihii hore ra'iisul wasaarihii hore xildhibaankii hore wasiirkii hore taliyihii hore agaasimihii hore waxaasoo dhan dadka ayaga hadda ugu hanti badan xagee ka keeneen ma shaqaysteen mana shaqaystaan shaqo kale ma qabtaan 24 saac siyaasadaasi isku rifaan oo isku dhibaateeyaan bulshada Soomaaliyeedna sida tii awrti carraweeleysa isaga daba wareejinayaan dadka sidaas wax u dhibaateynaya hantida ay ku noolyihiin xagee ka keenaan ma shaqaystaan waxa ay dhuuqaan marka ay xilka hayaan waxay kaydsadaan ay dhuuqaan dadka xoolooda ayay daldashaan sababtoo ta mushaar kuma filna ninka siyaasiga mushaarkiisu inuu ku filnaado way adag tahay mid ilaahay ka cabsanaya mooyee mushaarka dawladeedna inta badan shirkadaha waaweyn dadka u shaqeeya kama mushaar badna sida dawladnimada looga hantiyeystana loogama hantiyeysto loogama taajiro shirkadaha marka meesha waxaad dareemaysaa wax dadweyne in la cuno haddaba adigoo aragtidaada xoolo meesha laga qaaday la yaqaano in wadaada lagu wareejiyo ma kula wacan tahay aragtidaada waa inuu muhiim sidoo kale culimadu maxay ka yiraahdeen diintu samay ka qabtaa aragtida waa inuu muhiim xaq oo sifaalada noogu reeb. Assalaamu calaykum.